إنا لله وإنا إليه راجعون فنانين كوحدة هوبلada waabari ayaa tacsi u diray qoyskii heladii uu ka geeriyooday Allah u naxariistee abwaan fanaan Ibrahim Ismaaciil Sugule oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Burco kadib kulan ay ku yeesheen fanaaniinta hoobalada waabari magaalada Muqdisho qaar kamid ah hoobalada waabari ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid abwaanka iyagoona lagu bariyay in jannadii firdawsi lahu ka waraabiyo Ibrahim Ismaaciil Sugule الله يقان الصوران أبوان صوران الله نحرسته waxaan ugu tacsiyeynaa qoyskiisii eheladiisii qaraabadiisii walinta waa ilaahay inuu samir ka siiyo iyo inta fanaaniin Soomaaliyeed oo idil dunida dacaladeeda ku kala nool waxaan leenahay samir iyo iimaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ma lahan xuduud fanku male deegaan male cid gaar u leh ma jirto fanaankaas ka baxay ummadda Soomaaliyeed dhammaantood waxaanu leenahay samir iyo iimaan Allah ka siiyo ilaahay waxaan weydiinaynaa naxariis maanta duco inooga baahan yahay dadka Soomaaliyeed daafaha caalamka meel walba ka joogan sooraan maanta qof loo sheegaya kuma jiro waxaan weydiinayaa dadka Soomaaliyeed inay u soo duceeyaan ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxayna waxaan leeyahay samir iyo iimaan saadiq Allah inaga siiyo waxaan filayaa abwaan sooraan inuu ka bixin fanka kaliya ee uu ka baxay ummadda Soomaaliyeed ama inta Soomaali ku wada socdaan waxaan si gaar ah u sii amaanayaa kooxda waabari oo ilaa maalintii uu dhul dhacay ogeyd haday gudaha joogaan iyo haday dibad joogaan hiiriyo hoola garab taagnaa iyagoo loo abaal baan ku leeyahay maareeyaha tiyaatarka qaranka Cabdulqaadir Cabdi Shube ayaa tacsi ugu diray fanaaniinta Soomaaliyeed ehelka qaraabada uu ka tagay abwaan Sugule wuxuuna ka dalbaday dawladda federaalka Soomaaliya inay ka warhayaan agoontii uu ka tagay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halka saaka waxaan isugu nimi kooxdii waabari madaxdeedii iyo bahda warfaafinta tiim ka socda inaanu u tacsiyeyno ilaahay ha u naxariistee Ibrahim Ismaaciil Sugule oo loo yaqaan sooraan wuxuu ahaa nin si walba qayb kasta oo fanka nin aqoon u leh macallin ku ah la jecel yahay wuxuu ahaa nin cibaado badan oo ehlu salaada oo aad u cibaado badan ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariis janno inuu ka waraabiyo waxaan ka codsanayaa dawladda caruurta yaryar oo uu ka tagay in wax la taro Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.